bismillahirrahmanirrahiim waxaan u wanaagsanaa qayaarta wada naga daawanaysay ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad caawa ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonayo maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta dib u dhigtay dacwadda wariye Cabdicasiis Gurbiye baarlamaanka maamulka Soomaaliland oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday degmada Buuhoodle maamulka Galmudug oo ka shiray sugidda amniga shirka maamul goboleedyada madasha xisbiyada qaran oo war ka soo saartay shirka lagu wado in maamul goboleedyada ay ku yeeshaan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Koonfur Afrika ay ku sii kordhayaan dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 dalka Itoobiya oo lagu xiray mas'uuliyiin ka tirsan jabhadda OLF intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka Hilaac